saddexda wadan ee ugu labiska quruxda badan caalamka oo dhan wali ma maqashay oo Motinho Lifestyle-ka soo dhawaada runtii dadka ama xadaarada ama wadamadu way kala duwan yihiin way kala labis duwan yihiin way kala dhaqan duwan yihiin haddana iyada oo taageerayo labisyada caalamku wadamada way ku kala horumarsan yihiin waxaan soo qaadanaa maanta saddex wadan ee ugu labiska quruxda badan caalamka wadanka saddexaad ee ugu labiska quruxda badan caalamka South Korea labis ayaa la isku awood sheeganaya dariiqyada Koreada Koonfureed runtii wadankan South Korea dadkoodu waa dad inta badan aad u labista waxaad arkaysaa dariiqyada ama wadooyinka caasimadda iyo soo kale magaalooyinka kaleba in dadku midka kale uu ka labis qurux badan yahay badanka waxaad arkaysaa inay soo bandhigayaan labis uu ka duwan yahay qofka kale South Korea dadkeedu waxay aad u yaqaanaan isku dhafka labisada loo yaqaano minimalist design-ka ama soo kale goobaha isku soo baxayaan runtii wadankan aad buu u labis qurux badan yahay kaalinta labaad wadanka ugu labiska quruxda badan ee caalamka ku jira waa wadanka loo yaqaano Talyaaniga taashiga kuma jiro in wadankan uu yahay wadamada ugu labiska quruxda badan ee caalamka runtii Talyaaniguna waa quruxda Yurub ee caadiga Talyaanigu labiska ma xidho ee waabay neefsadaan labiska odayaasha ilaa iyo caruurta dhalinyarada ilaa waayeelka laga soo bilaabo Naples ilaa iyo Milan waxaad ka heli doontaa dad u labisan labisada ugu quruxda badan leh oo badankoodu u labisan yihiin labiska gentlemanka dadkan oo badanku labisan suud ama labisada classica oo modern style labisada u dhow wadanka kaalinta koowaad ku jira ee ugu labiska quruxda badan ee caalamka wadanka loo yaqaano Japan wadankan waa wadan clean ah soo kalena hal abuur leh marka loo eego labiska runtii Tokyo waa heer caalami soo kale fashion-ku maaha dhar kaliya oo la xidho waa hadal labisku waa luqad la isku jawaabo darafyada Japan laga soo bilaabo leerarka Tokyo labisada dhalaalaya ee hal abuurnimada ku jirto ku faanada dharka dhaqankooda Japan waxay mutaysatay in dadku si wanaagsan ay u labistaan kana mashquulaan wixii u daran kuna mashquulaan wixii u dana dadkan ma yaqaanaan qabiil iyo caadfad waxa kaliya ay ku mashquulaan dantooda adigu haddaba wadankeedu malinaysa inuu yahay wadanka ugu labiska badan ama labiska quruxda badan leh caalamka